بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال ميل كستا oo aad ka daawanaysaan halkani waa telefishinka Kalsan barnaamijkuna waa barnaamijka diiradda oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Kalsan TV barnaamijkeena toddobaadkan waxaan si gaar ah diiradda ugu saari doonaa gobolka Banaadir maxaa ka qaldan gobolka Banaadir haddii ay tahay dhinaca maamulka mase ka jiraan horumaro la taaban karo oo u dhigma ama la mid ah dhaqaalaha soo gala gobolka Banaadir ee ka soo xarooda dekedda iyo garoonka aadan cadde barnaamijka waxaan gabigiisba diiradda ku saari doonaa toddobaadkan gobolka Banaadir iyo waxyaabaha ka khaldan iyo sida xal loogu heli karo barnaamijka dhameystiran waxaad daawanaysaan gordhow وهاجاك داوديال مركلة كورنتي وناكسن برنامج كديرة سيدنا ندين شيء قبل تضبط كان وحن ديرة كسارينا قبل كبنادر برنامج كا وحا مرتي يقوى أو إلى فلنقينية أستاذ عيدروس محمد عبدي أفسجارو وقدوميها هيئة لقوم عابو ميديا فوبيس وأنا فلنقية الرمها عالم كحق دقن كدقالها إيو سياسة انتبه وهرين waxaan jeclahay inaan iraado Aydrus bal ku soo dhawow stuudiyaha Kalsan iyo mar kale arusal wadhoora barnaamijkeena toddobaadkan waxaan si gaar ah diiradda ugu saareynaa waxay tahay bal gobolka Banaadir waxa lagu tilmaamaa inuu yahay hooyadii dalka Soomaaliyeed waa gobol u taagan astaanta qaranka Soomaaliya waa gobolka ay ka soo xaroodaan dhaqaalaha ugu badan marka la hadlayo ama laga hadlayo gobolada kale dalka Soomaaliya waa xarunta saldhigga u ah qaybaha kala duwan ee xukuumadda haday ahaan lahayd madaxtooyadii baarlamaankii fulintii ama golihii wasiiradii ama xukuumaddii intaba waxay degan yihiin ama saldhig uu u yahay gobolka Banaadir laakiinse waxaan arkaynaa in ammaankiisa uusan cagad ku taagnayn gobolka Banaadir in maamulkii habacsanaan aad u badan ay ka muuqato gobolka Banaadir dhibaatooyin badan horumar ha joogeen in dadkii xataa noloshoodii saameyn badan ay ku yeelatay xaaladahan ugu dambeeyay ee waayahan ka soo ifbaxayay maamulka gobolka Banaadir su'aasha ugu horeysa ee aan jeclahay inaan ku su'aalo waxay tahay yaa loo aaneyn kara maxayse tahay habacsanidan jirta oo ammaankii aad u marayso inuu aad u sii dabcayo gaar ahaan gobolka Banaadir aan ka hadlaynaa degmooyinka markaad fiiriso dhinaca markaad fiiriso nadaafadii markaad fiiriso wadooyinkii markaad fiiriso waxbarashadii markaad fiiriso gobolka waxaad u maraysaa in uu sii damayo maalinba maalinta ka dambaysa yaa dhaliishaas iska leh yaa se lagu eedeyn karaa oo dusha u ridanaya mas'uuliyadda noocaas ah ee dayacan waxaan aad Ismaaciil ugu faraxsanahay xusuusan dib isugu noqonaya markaan gobolka Banaadir ka Aydrus ahaan خاص خصوص وقدر وحن حسوستا أولاد مجري هذا الاسكودة معاي توابري والرجلي هذا اللي أولاد يوابري والرجلي وهل اسكولو كراء يعني أنا وحسوستا أنا وحبرشة قبلها واضح قالك على البولاي يمجوري عيال قابو حمر نعيل وحصتا عليه كل جو صدح عيال كلية صدح عيال بس حمر أفع عيال أفراد أتعدى أول تالنج قفك كارلا واضح نروح السيء هيك يعني حصوصتها أنا دي بشانس هون كده شغالة بقنا وي مركي ترى دوكسي هلا نالك فصعود سكول لو دير جروبه وعن حصوصتها حمر oo diyaarada farmatoorada markay degayso waqti ay ku degto oo saacad ka dhigano xamarkiisaas ah oo anigu qofna iiga mudneen ee u dambeeyay carri guduud cali hareeri bakaaro oga wax lagu sameeyay xamar soo ku noqday marka in aan hal iskuul oo laba shift ku dhigano oo ijaaro 6 qola كان كم كل شيء حمر واحد أركين لا بلابي إسكولة كاسب بولار ولا حقولة إسكولة هذا ما كلها تفصله 15 من إسكولة وديق الكوز جرته يا لو كلا كعي حمرتي ماشى كبلابت ما توحي مريسات الضبيط طبعا حافظت دقمو أنقول كياله عن شور لقى قاعد المجرد
degmo suuq ku yaalla canshuur laga qaadin ma jirto dekada iyo garoonka waxay yahayn ma jirto gaari gacan lagu shaqaysto canshuur laga qaadin ma jirto gabar jaad meel la fadhiiso canshuur laga qaadin ma jirto irid meel ka daloosha oo ganacsi loogu talagalay baarbeer ha ahaato takhtar ha ahaato dukaan ha ahaato farmashi ha ahaato lacagaa laga qaadaa baabuur socda ama mooto ha ahaato ama ha weynaada ama ha yaraada lacagaa laga qaadaa budgetka muqdisho keliya ka soo urura adduunka ma jiro meel la mida in retain marka taa bedelkeed wax ku soo noqda bulshada oo loo qabanayo oon aragnana ma jirto waxaa halis loogu sii jiraa in hal saldhig ah oo aada u dacwootaa ay ka horeyso konton matabaad ay ka horeyso jidgooyin ay ka horeeyaan difaac in dadkii iyo dowladda hoose dadkii iyo gobolka banaadir dadkii iyo booliiskii wax xiriir aysan lahayn aysan ka dhaxaynin in hadda ay soo noqotay middo iyo toorey in moobilada dadka looga qaadanayo in xabaduhu dugsi iyo iskool iyo jaamacad meel beeshay muqdisho wixii loo qabtay oo u qabteen turkidoo kaleeto ayaa burburaya infrastructurekeeda wadooyinkeeda dhoobo caro iyo biyo iskor saaran dhibka taaganaa marka wuxuu yahay muqdisho iidhahayga maaha ma garanayo min calimaadi ka soo bilow ilaa yoomana haadaa tarsan qof ka sarreeyo muqdisho wax ka qabta ani ma garanayo waatay aad baad umahadsan tahay waxaad ka hadashay in dhibaato badan ay haysato xagga burburka hadday tahay wadooyinkii waa wadooyinkii la marayay markaan ka hadlayno gobolka banaadir waxaan ka warhaynaa gobolka banaadir dhaqaale ayaa soo gala 15% dakhliga soo gala dekada caalamiga ah ee magaalada muqdisho waxaa iska leh gobolka banaadir ayaa qoonda ku leh 15% sidoo kale garoonkan aadan cadde wixii ka soo daga oo ama ka soo gala oo dakhli ah waxaa iska leh maamul gobolka banaadir markii loo fiiriyo labadaas percentage ama boqolay oo 15 dekada ka soo xarooda iyo 15 kale oo ka soo xarooda garoonka diyaaradaha waa dhaqaale aad u buuran bangiga dhaxana bakaaraha bangiga dhaxana ganacsiga suuqa bakaaraha sidaas sheegtay mootooyinka bajaajka caasiyaasha intaasoo idilba dakhli baa ka soo xarooda albaabada ganacsigaba dhaqaalahaas xagee buu ku baxa haddii uusan ka muuqan maamulka gobolka banaadir ama gobolkii uusan ka muuqan oo wadooyinka qaarkood gaadiidka markay marayaan islaamaha uurka leh laga yaabo xitaa inay ilmaha ka soo dhacaan siday u burbursan yihiin wadooyinka meesha mara marka laga tago wadadan maka almukarama ee halkaan marta oo turkida ay dayactireen iyo wadooyin kooban qaar badan maamulka gobolka banaadir isaga lafsad ahaantiisa dhaqaalaha saas u buuran ee soo gala maxaa looga baahan yahay inuu ugu qabto bulshada hadalka ma fura waxaa laga rabaa ugu yaraan wadooyin ugu yaraan isbitaallo ugu yaraan madaaris ugu yaraan caafimaadkooda ugu yaraan amnigooda gobolka banaadir ma astaysna wax loogu qabto shil laga qaaday ma astaysna gobolka banaadir iskuul faraha looga qaaday oo dowladdu leedahay oo dowladda hoosu gacan ka geysatay dadku hadday diyaar leeyihiin inay degmo kasta geliyaan wixii dowladdu lahayd gees xataa la soo noqon lahaa dowladda hoose hal iskuul oo dowladdu leedahay gacanteeda kusoo dhigtay miyaa jirta waa maya waxa hadda la qaaday iska dhaafa hal wax oo lahayd dowladdii dhexe ka tagtay oo burburay oo la dayactira ma jiraan suuq la dayactira ma jiraan waxaan arkaynaaba suuq dhisnaa oo cali ugaas la dhihi jiray oo hadda laga dhigay deegaan la degay xaafad laga dhigay oo waliba gudoomiye gobol uu baabi'iyey iibsaday gobolkii dhammaa waxqabadkiisu wuxuu noqday waxqabadkiisu wuxuu noqday suuqyo jiray in la cabiray gobolka cabiraay gobolkii shaqadiisu waxay noqotay in iskuulla jiray dad loogu deeqay oo aabita xataa la degay waxa isweydiinta la waxay tahay xoolo iyo dad isdhex fadhiya wadada wata midaan oo soo laaban doonaa dhinacan xoolaha iyo waxaa jira gobolka banaadir dhul boobka ama marka laga hadlayo xaaladaha dhulka dhibaato aad u baan ayaa ka jirta
xilli kasta waxaa la maqlaa dagaal iyo israsaasayn soconaysa oo ku salaysan muran dhul meelaha qaar waxaad arkaysaa maamulkii gobolka banaadir oo ku lug leh dad la barakicinayo oo dhul ahaa dhul dan guud oo dowladda ay iska lahayd oo maamulkii lafsad ahaantiisa uu qayb ka yahay inuu barakiciyo dadkii deganaa haddana aad arkayso in la iibinayo oo boosaskii ama dhulkii dadkii laga barakiciyey masaakiinta ahaa ee ku noolaa ee duruufaysnaa ee amnigooda iyo noloshooda u liitay ee laga barakiciyey in dad ganacsato la siinayo ama inta la cabiro dib maamulkii gobolka banaadir u iibinaya dhulkii baad arkaysaa marka arrimaha noocaas oo kale ah maxay u dhibi karaan wada shaqaynta dadka iyo dowladda mase dhaawici kartaa ixtiraamkii iyo rajadii laga qabay in dowladda lala shaqeeyo ama iskaashi uu dhex maro bulshada iyo dowladda dhibka ismaaciiltaa ka daran maxay tahay dhul aada og tahay in la leeyahay dalka wixii ka dhacay waa la ognahay dadaa maqan dadaa dhintay waxaa ka sii daran 10 mitir 15 mitir xaafadda ugu raaxada badan ugu cabirka fiican leh waa Madiino iyo Dharkeenley iyo Tawfiiq oo kaleeto vinti bar vinti ahayn 20 lagu dhuftay waxaad arkaysaa wadooyinkooda 15 qaarkood wadooyin qaarkood 20 in dad la dejinayo oo dhagxaan la dhigi waa dhaweedan arkayna amniga loo dhigi lahaa dhagax kasta jidkii la gooyo guryaha laga dhisay dad laga gaday wadooyinkii loo soo mari lahaa dab hadduu kaco dada laga kiriinaya oo loo cabiraya guri laga maqan yahay ama dowlad ha lahaato ama dad ha lahaadaana waxaa laga siinayaa dad waxaa la isku dilayaa anaa dhacaya anaa hagaajina la isku dili maayo gobolka qayb mas-uuliyadooyinkay dowladda hoose mas-uuliyad weyni ka tahay degmadii ninkii xukumo mas-uuliyadoonu ka yahay okay haddii noqotay marka in loo qaraab tago in dhulkii dowladda ka soo qabo ilaa iyo inta 20 sano iyo 20 burbur ka ahayd wixii dhul dowlad lahayd gacan kuma jiraan wixii dhul soo haray oo raaxadii iyo dabkii iyo korontadii iyo biyii gacan kuma jiraan iskuul gacan kuma jiro isbitaal gacan kuma jiro maxaa laga talinayaa gobolka banaadir wuxuu noqday marka meel tajza loo cuno gobol loo cuno noqday ninka cusub ay yimaadana maxaa haray buu ku talagalay si dhaqaalihii uga sameeyo iska daa marka in gaari gacan nin watay iyo nin gabar jaad meel ku gadaysay iyo irid furneed lacagtii laga qaaday iyo suuqa bakaaraha lacagtii laga qaaday iyo baabuur socda wixii laga qaaday iska daayay budgetkii dowladda dhexe wuxuu u qorsheynaysay dowladdii dhexe ma soo faragelisaa madaxweynihii baa jooga ra'iisul jooga waxaa joogta maaragtay hay-adihii maaragtay hal bangi oo dowladda leedahay maaragtaa bangi waa la degan yahay bangigii weynaa silsilada weynaa hadda furan keliya inta kale taa wax ka baxeen aw jaamacaddii ummadda laakiin hadda dib loo soo nooleeyay 3 kambas oo kale way leedahay waxba kama jiraan aw xanaanada xoolaha aw gaheer aw beerihi aw daawadi aw xanaanada xoolaha waa bilow fiican marka la fiiriyo xamarweyne oo ay qayb ka shaqeynayso degmada waa bari oo qayb ay ku leedahay 20 October agteeda iyo fadhigii kale ee jaamacadda waxaas dhan waa ay dheh wax qabadkii dhabta ah iyo ardadii dhiganaysay ardadii lagu siinay raashinka ardadii lagu siinay lacagta taama la dhihi karaa marka dhaqaalihii iyo amnigii ayaan wali saamixi karin in maadaama dowladdii ay wali curdun iska tahay oo laga yaabo in dhaqaalihii ku filnaa ama awoodii xagga amniga ay iska liidato maxamed saad barre meeqa madaxweynaha ka dambeysay تأثيرنا بالمئة قدم بس لكن كل ما بربر النوذ البابوح والربع مد وحكي قبتي ما جد محمد سعد برميل وكتير وطيب نو حكي قبتي ما جرت النوذ البابوح جد كاس ما أردت توفيق قلا جد كبولي قرن قلا جد كبكارة قلا جد كجاشان دي كمرة قولي واسدود نو سو جستي ما جرا أن قاطع إقاعدة كسرت مثلا BCCI لون عقلة مثلا وطيب waxaan rabaa telefishinka kalsan ayaa wuxuu sameynayay xog ururin aan ugu kurgalayno bal wada shaqaynta ka dhaxaysa dadweynaha degan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka ama guud ahaanba dawladda dadkii aan wareysanay waxay isku raaceen intooda badan tiro 98% gaaraysa in wada shaqayn aysan kala dhaxaynin xarunta degmada laga maamulo degmadooda ee ku taala degmada ay degan yihiin ama ku nool yihiin wada shaqayn la'aan saldhigyada booliiska dadka degan degmadaasi ka dhaxayso
cabasho iyo kalsooni inaysan ku qabin garsoorka jira marka arrimahaas oo idin maxay saameyn ku yeelan karaan horumar in laga gaaro gobolka Banaadir yaase eedaasi la saaraya marba haddii dadkii deganaa degmooyinka ama gobolka Banaadir aysan wada shaqayn kala dhaxayn hay'adaha kala duwan ee dawladda laamiga amaanka xataa maamulka saldhigga ugu dhow booliska aysan xiriir la lahayn waxaan xusuustaa degmo gobol degmo waax laan tabeelle waxaas kartiin raba dadkii ka shaqayn lahaa kawaadirka ahaa ee mustawa gobolka Banaadir uu abaabuli lahaa oo degmo kasta gobolka uu kula xisaabtami lahaa degmada ninka xukuma degmada intee qaybood laamood tahay laanta intee waxooday tahay waxdu intee tabeelle tahay station intee ku yaala ma jira maanta station inta u dacwootid muxuu ahaato ku suurtagelinaya dacwada sax inuu qaado ma waxa lagu leeyahay qofka aad kan raashinkiisa lacagtiisa kan biilkiisa أنا قف كان محاو كان سدي قف كان محاو كان سدي وحين اللي يقبض أنا ما قف كان بيلو قدر أو كان سدي أنا ما أشوف بيلو يقول جيفته حتى جاذا اللي ويدين كراملته بدار سواء كانت مش كجرا ما عشان مركب محل وهذا الشقية دقمدي أنت هيد قبل كم كو حساب تمية قبل كنت دقمدي ما له حساب تمية تليه قيبت البوليس كما له حساب تمية أنت الدقمو استيشن أولية ما له حساب تمية إسقاسين تأكل شقينيا بوليسكم ملقو كرسونيا ما أنت عنيك إنتان دعوة كوكو وكوكيو لبدينا قر إنتان الله قاعدو نلوك بين كرم محكمة ملقو كرسونيا ما جرت وحاس قرصار كمال كلو بالجراب عطينا أفقلوا في تنجيده قرصار لما ميعلم قرصار كمال كلو أرنت قرصار كهذا أتكرر واجسات كشغيسي كشغيسان ولا جيدا وحوها هذا الهين تقول بدن حلي وأنا كتسن golaha shacabkana way ka dhawaajiyeen way sheegeen waxay yiraahdeen markii cadaalad iyo garsoor ay ka waayeen magaalada Muqdisho dadka degan maxkamadaha kala duwan qaarkood waxay maciin bideen inay garsoor u raadiyaan ama u aadaan ururka al-shabaab oo goobaha ay ka tagaan ugu tagaan halkaas oo ay garsoor iyo cadaalad ka raadiyeen taa arrin qarsoodi ama aha xildhibaanadii golaha shacabka ka hadlay iyadoo la og yahay cabasho badan madaxweynaha markii uu yimid awoodda xilka uu la wareegay waxyaabaha ugu badan dadka ay ka cabanayeen waxay ahayd garsoorka maxkamadaha ayaa aad carabka loogu adkeeyay 5 bilood gudahood ayuu qabsaday madaxweynaha inuu wax weyn kaga qaban doono hadda sanad ayay sii maraysaa waxaad u malaysaa wax isbedel oo maanta la taaban karo xagga garsoorka inaanu ka jirin oo dadkii ay ku leeyihiin si cad lagu weydiinayaa hantidaada waan ku soo dhicinaynaa intaas lacag ma bixinaysaa lala taagan yahay maxaa wax looga qaban laaya runta hadii laga baqayn waxaan maqli jiray tuug carara iyo tuug la raadiyo oo la yiraahdo war tuugan waa lagu raad joogaa tuuga maxkamadu joogaa tuugiya maxkamadu jooga oo adiga wax ku weystay maanta gurigan aan deganahay hadda aan ka dhaxadlayno haddaan saaka ku dacweeyo qolada iskale wareer gurigan kalsanaa deganeed قراها سان لهي حاجه كسو gasho bila ijaar ugu jirta hadii la yiraahdo intaas ay ugu filan ma dhacayso dacwa noo soconaysa ani reer guriga iskala ma noogu soconaysa adna keen meesha kaliya runta loo aaday waa meesha shabaab warkeeda waa dhamaadaan laakiin garsoorna ma jiro tuugadina waxay joogtaa maxkamadda guriga aniga ku dhashay oona ka qixin أنا ملك أدنى أنا تقول أنا إسكاله وقد الإليم وحد صان لوجن وحوي إن محكمات ما قدم بس يتراضوا عندنا كان سوبرلوج هذا عندنا كان سوبرلوج هذا سوبرلوج يا جماعة كان يبكي على سنة الله حكمه أحد واحد اللي هذا أبيل كرسور كان كاسوي وأقول كان كلش أي داعسة سيداي مركا أي كوي ما كرتا نبت قليل سيداي كوي ما كرتا ولا الشقين أحمرتا ضدكي شعب كها الصوماليين iyo dawladii hadii ay adihii qaranka lagu eedeynayo arimaha noocaas oo kala waxay ka iman kartaa xamar in lagu guuro qof walba uu aado Hargeysa iyo Boosaaso iyo Kismaayo iyo Baydhabo in la aado xamar oo cudurkaas ma soo yaalo wax badan Hargeysa ka dhici karin Boosaaso ka dhici karin Gaalkacyo ka dhici karin Dhuusamareeb ka dhici karin الجوهر كده يكرن لكن حمر وكده يكرتها. ما حسوا عمر. حمر حسوا حمر فيدنا تالا. حمر ولوسو شقتك. حتى قال أوسو شقتك. حمر معناه كأسكله. حمر توج عليه.
حمر قف حق له ماله لكن هذا الدولة الصومالية جوكتو وحبك ما قبل كرت دولة ما قبل كرت واتهاي midaan marka arrimahan soconaya tusaale markaan u soo qaadano maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir toos waxay u hoostagaan madaxtooyada sababta waxay tahay gudoomiyaha gobolka cidda magacaawda waa madaxweynaha markuu gudoomiyaha magacaabo gudoomiyaha isaga ayaa magacaabo 17 qof 17 degmo ka noqonaya maamulka iyo qaybaha ku-xigeenada iyo xogeyaasha iyo qaybaha kale ee maamulku ka kooban yahay marka ma la oran karaa dhibaatada marka waxay dib ugu laabanaysaa oo salka ay ku haysaa madaxtooyada nafsad ahaanteeda sababta waxay tahay marka laga hadlaayo tusaale ahaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ma hoostagayo wasaaradda hebla ma hoostagayo amarna kama qaadanayo laakiin toos waxa uu soo magacaabay madaxweynaha xilkan waxa ka qaadi kara madaxweynaha marka wuxuu u dhigan yahay ama meesha ku fadhiya waa awoodii madaxweynaha haddii marka waxa soo dhibaato ay dhacayaan oo shicibkii amaankoodii aan la sugaynin canshuuraha laga qaado waxaan ognahay dadka markii canshuur laga qaado inay u baahan yihiin adeegyo loo qabto oo nabadgelyada ugu horeyso caafimaadka waxbarashada wadooyinka waxyaabo badan loo qabto haddii marka la qaban waayo arrimahaas oo idil eedda ma waxay ku koobnaanaysaa gudoomiyihii gobolka mise ilaa madaxweynaha oo qofka ugu sareeya ee soo magacaabay ah ayay eedda dabada la galaysaa wax ku dawladda prime minister madaxweyne kama saarnaanayaan madaxweynaha waxa laga yaabaa maanta inuu si toos ah u saameynin gaalkacay wax ka dhacay inuu kula xisaabto maamul goboleed inuu dusha ka fiiriyo maahan wala prime minister maamul goboleedyada warkooda uu cad yahay waxaaba ay challenge gareynayaan ama ay tartan kula jiraan xagga awoodda ah waa dawladda federaalka ah laakiin waxaan ka hadlaynaa gobolkii Banaadir oo ah meesha laga biilo dawladda oo idil dhaqaalaha dawladda ay maanta howlaha ku kala maareynaysan meesha ka yimaado waa gobolka Banaadir maxaa isagii boo ka dhigay marka oo loogu diidan yahay inuu caafimaado maxaa loogu diidan yahay in la xisaabtamo dadka maamulaya ama madaxda ka noqonaya gobolka Banaadir si xuquuqdooda ay u helaan waxaan ognahay xataa marka laga hadlayay ilaa hadda maqaamkii magaalada Muqdisho معدة ومالنا معدة ما من قبل دي على سمي قبل كبنادر مالو رأسيه إلى هذا لما هاي حدنا نلشي يا عريري سيجري سمالين بمالين تكتم بيسا نقالها قبل كبنادرنا وحا قعنت كوها يا ودولة دي فدرال كاي أو لغيها حتى إن ما ملكر لو درو نقالها أو إنه هرمر كودا كوكبتان لو درو مقالدنا أي كبا هنتها كبوكتو كبا باسنتها صعوة أي سعسنا وحمارس الدولة ما شرتي سنسة أنا قلق قليل كوكلة مركب مسعون يسأل ما مسعون يا وقف واحد قبنا يا ورد ضد متجوعان قرن كرنا لشاس ضد متجوعان وحي حق وليين مركب لقى قاعد وحي حق لو قولها وحي حق وليين ضد دولان كرورت قبل كان متجوعان ويجوعان الأورا كرها ملغية بعد ضد ما هم سوى صباحان حد سعيد كم هو أنا سعيد سمترموها مقالة مركو عينه وكعمانجي أحمد سعيد سمتر أحمد إسماعيل سمتر سمتر موالد عندي ورتك قرن كعب المكتب بختي عن واحد كم واحد دران كعن لهن تكسول بنتلاقي حتى ور أن كونسنتريشن بلبي كده فاينل وكبير حسام كبير أنا تدخل لكن ملورن كرا مقدشة كوي سياشك إلى حد نبض قليل بحث بيسنه الملورن كرا تدخل إن الدليل deegaanada qaarkood waxa laga yaabaa in maamulka marka laga tago in dadkii beerihii ay hubeysan yihiin oo hubkooda ay haystaan ay dagaalamayaan ama ay isku difaacayaan laakiin Muqdisho marka laga hadlo awoodo ayaa isku haysta marka laga tago dawladda shabaabka dhinac ayuu ka joogaa magaaladii oo si aan toos ahayn iyo si toos ah labadaba saameyn ugu leh aad ogtahay marka shicibkii hubkii looma ogola inay qaataan isdifaacaan cabsi baa jirta haddii marka barnaamijka la sameeyay la yiraahdo ma laga yaabaa in lagu soo dhex dhuunto oo amnigii oo faraha ka sii baxo inay ka baqayaan arrimo noocaas oo kale ay isleeyihiin marka yaan laydin arkaba haqash horta wax dareen la horta ma joogaan oo mid meesha ka fiirnaa dhibka dadkan wax ku baaqday ma jirto maxaa loo qabtay waa in return dadkan maxaa loo qabtay wax ku baaqday su'aal baan ku weydiinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka Banaadir meel kale kama iibaan dadka gobolka degan iyaga maxaa u diiday dadkooda inay horumarsadaan loo aan wax ka qabanayo xirooyina la gelinayo oo lagu xanaanay ama lagu ganaaxo weli ma aragtay loo laftigeeda iska leh
dadka gobolka degan dad in la xanaaneeyo Soomaal laga xaray dadka lagu ganaa oo dadka si meel ugu sameeysan loogu sameeyo ma jirto wali laamigi fadhisa shalay iyo daraad meel aan gurigeyga u maraan tusaale soo qaadanaya gobolka Banaadir waxaad arkaysaa xilliyada qaarkood habeenkiisiiba markii fiidkii la dhaafo 8 fiidnimo wixii ka dambeeya geel ayaa soo gala magaalada ilaa number 4 soo gaaro mararka qaarkood oo geelaasna geel suuq loo wada iib ma aha geeli qalliinka oo kawaan barin la dhaqaayo waa geel ku nool qaybo ka mid ah magaalada oo habeenkiina daaqaya oo laga yaabo gurigaaga adoo ku jira inaad aragto geel amarti ama geel daaqaya geedihii gurigaaga ku yaalay cid looga dacwoonayo malaha maamulka gobolka shaqadaas xitaa wax ma ka qaban lahayn ma soo jeedaan lo'dii arigii cadaanka ay wax ka qaban lahayn geelan horta 4 saac oo bilowda 4 saac 5 saac waa la qumina raga daba socdo toosh wada dib oo daajinaya magaalada guryaha ilaa Makka Mukarrama halka wado ilaa iyo Sodonka ilaa iyo dharkeenle oo dhan ilaa iyo Madiino oo dhan horta geela iskale anu ma garanayo dhinaca kale takaaraan in laga soo duulo geelka laga soo duulo tawfiiq ay geela xareeyo leeyahay kulli xaafada aan ku noolahay taalada maartay number 4 oo geel taagan yahay oo duliraa wax soo sawir mar tiyaatarka soo geel taagan yahay oo tigid weyn oo go'aad rabay marka geelan asagu dadku waa ka jiifaanba war kuwa aan laga jiifin ee magaalada markaa fiirsid diyaar uma marka gudoomiyeeriisu wax ka qabto anigu gobolkaas oo dhan ku iri mar labaad aan ku celiyay wallahi nisanayn inta ina aqaano wiliga hal mar arkay tarsan laakiin guriga anoo jiifan raadiga ka jeclaysan jir hadalkiisa diyaar garowgiisa tacbiyadiisa marba xafatimiisa mid ma oran karaa marka tarsan wuxuu ahaa nin codkara كادر أو ضدك أفتهمه يمتقنا أو مركب ما لورن كرا بقول كيف بقول لفتي سوق وهذا يجري وحكمت كيس أم بورنا والله نلقو داري مبدع هن ترزن كور نلقى أساكن هذا ناس هو جوج نلقي دبي صلوا ورا كرا دقارة اللي كل جه هذا هو صحيحنا ترزن البيان وحولها كريتيف اسبرت بدن ولا صبح وحا تاجرين تركيا فلسطين قدس ونصوبنا بحين ورقولك اسكنها ورقاسوا لها قفك قش لو سو قبنا انت ساكناها ور انت ورعنا ayaan hore jardiinooyinkii gobolka in uu soo celinayo sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo dib loo soo celinayo oo dadka dhistay goobaha danta guud in dib loo soo qabanayo arintii waxay ku dambeysay hal darbi oo ninkii la siiyay xataa u ka tagay intuu iska maartay xad gudbi oo sir maartay badso oo ka dhig meel isma ah ninkii ku jirnaa inta ka tarbiir loo soo qaatay iyo gobolka Banaadir ilaa habeena hadii booliiski ka tarbiilo anoo sii hooyanay ya arkay waxaan la caaw hawsha la galay maxay tahay subax waxaan ku soo toosay waxaa la damiyay number 4 shidaalka darbiga ka soo horjeeday meel yar 10 mitir moo dhameeyay qashinki wali weeyaan lama qaado burburkii ha nadaafad looma sameeyo hal la dumiyay qashinka ma la qaado meeshaas meel xataa dumin u baahan meesha waa duntay aniga waxaan aqaanaa suuqan oo number 4 سوقا جدك مارتي مكة مكرمة وحن شقوا أقانا أفر جدينو وحن شقوا أقانا بكارة جدينو كيال وحن شقوا أقانا صنع جدينو كيال وحن شقوا أقانا ماشان بوليس أفسيوني جديك كيال جدينوي كيال يوم حواي توحي كيال ما تبعيه السوق حتى ملها النظام ودميس بردورة حمر أو بردورة حمر أو معنا ميراها صدق عن كرلا ميس أو كذا القدار كذا هيلب كذا هيلب كسر الله يجيل كلام ماله قدارته ملايكة أو سوق ملايكة أصلا دولة أسكله سوق حمرين لكن وكوانكي وفرية هي ولا ويدي إن كستو لحقل بل لحقل هذا صحفية طيب صحفية شقة هذا هو لحقل ما جبته ولا دكينه qaybta kawaanka oo xamarweyne hadda uu shaqeeyaa dib habeenna waa lagu sameeyay aadna waa loo balaariyay waliba oo maalgelin kawaanki kalluunka koodka gudaha ma koodka kalluunka dekada bardooda taakay bangiya ku yaal waxa qashin oo yaalo oo la dhigay suuqa ma jirin waxay baabuur istaagi jirin intaas oo meel aan ku tilmaamay 4 jardiino sanco
bakaaro Casa Popolare gedi waxay ahayn jirjinooyin ka soo deg ilaa iyo afisyooni ka soo deg suuqyadii Siigaale suuqii bakaaraha baarguulada ka sokeeyay suuqii Tawfiiq suuqii Weynaa Barduuro suuqii maartay Cabdicaziis ma hayno jiira kasto ka soo laabatay Siigadaada iyo baabuurtaada waxa yaala laba cad oo hilbo saas loo soo tago nadaafadooda meel lagu soo qala xataa xoolaha Ismaaciil meel lagu soo qalo xoolaha lama oga hilibkan dadku cunayaan oo jiira kasta la taagan yahay maxaa u diiday dawladii qaybin jirto baabuurta u lahayd xoolaha caafimaadkooda la baari jiray oo maqli jiray dhiigii kawaanka meeshaas laga sameeyay oo laga wareejiyay meel hebel xaasbadeedka inta u wareegaan liida la geli karin waxaas waxay ahayd dhiigaas iyo xoolaha la qalayo maanta yaa garan kara neef xalaala oo caafimaadkiisu xalaal yahay oo xataa lahaanshihiisu xalaal yahay tuugadii yaa xoolo iska soo qaadanaysa xaafadda aniga andigana xustaa gabar in lagu qabto 4 neef oo iska wadato markad qabiilay tagto waa iska horreeyay anka xaafadda dhexdeeda gabadha xoolo soo gal gurigaana leeyahay waryaa xoolihiina wataal